duqayntii Hargeysa iyo Burco taariikh murugo leh si aynu u fahanno waxa sababay duqayntii diyaaradaha ee Hargeysana halkan kaaga soo bilaabo. Hargeysa iyo Burco 1988 waxa ka dhacay dhacdooyin taariikheed waxaana u weynaa dhacday dadka deegaanka ugu yeeraan gudagalkii Hargeysa iyo Burco. Waxa uu ahaa dagaal ballaaran oo jabhadii wadaniga Soomaaliyeed isu magacowday SNM ay ku soo gashay gudaha dhulkii uu barre ka arriminayay gaar ahaan gobolada waqooyi galbeed iyo Togdheer. Weerarkan oo dhacay bishii May 1988 ayaa lagu qaaday magaalooyinka Hargeysa iyo Burco kuwaas oo markaas ka mid ahaa magaalooyinka ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyagoo kaalinta labaad iyo saddexaad kaga jiray tirada dadka iyo horumarka. Jamhadii SNM waxay si degdeg ah u qabsatay magaalada Burco 27kii bishii shanaad muddo 2 saacadood gudahooda halka ay Hargeysa gudaha u galeen 29kii May iyaga oo qabsaday inta badan magaalada marka laga reebo garoonka diyaaradaha oo ilaa 1 Juun ay haysteen. Intii lagu guda jiray dagaalkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay geysteen gabood fallaxun oo ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka mid ahaayeen duqeymo culus oo lala beegsaday shacabka. SNM waxaa lagu aasaasay Yurub gaar ahaan magaalada London waxaa loo soo waldaamiyay qaaradda madow ee Afrika gaar ahaan Addis Ababa bishii Abriil 1982. SNM waxay xarun ku samaysatay magaalada Diridhaba ee dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya hoostaga waxay ka dhisteen 3 saldhig military oo muhiim ah. Laga bilaabo bishaas waxay weerar dhuumaylaysi ah ku qaadi jireen gobolada waqooyi galbeed iyo Togdheer. ciidamo ka goostay xoogga dalka Soomaaliya iyo dhalinyaro rayid ah ayaa lagu tababaray dagaalkii jabhadeynta si ay u noqdaan ciidamo si fiican u abaabulan. Itoobiya waxay markii hore si xadidan u taageeri jirtay SNM iyagoo siin jiray rasaas yeeshee dagaalyahanada SNM waxay la yimaadeen hubkooda gaarka ay ka soo heleen dawlado ka soo horjeeday Siyaad Barre oo ay Liibiya u horeyso. Waxa kale oo ay heleen qalab military oo ay ka qabsadeen ciidamadii dawladii Siyaad Barre. Markii SNM ay sii xoogeysatay hukuumadii Muqdisho waxa ay samaysay ciidamo si gaar ah oo la tacaamulo la dagaalanka SNM. sanadihii xigay SNM waxay samaysay weerar qarsoodi ah oo ay ku qaaday waqooyiga Soomaaliya inkastoo oo weeraradani aanay halis weyn ku ahayn gacan ku haynta xukuumadda Barre ee waqooyiga haddana waxay noqdeen mid madax xanuunjin joogto ah ku haysa taliskii Siyaad Barre oo si isdaba jooga u wiiqeen meelaha ay dadka ugu dhaqdhaqaaqi jireen oo aadka ay uga dhaqdhaqaaqi jireen waxaa ka mid ah magaalada Balligubadle. waxaan weli ku sharaxayaa sababihii keenay weerarkii diyaaradaha loo isticmaalay ee Hargeysa ka dhacay. SNM oo ka soo ruqaansatay deegaanka Samatar Axmed galabnimadii 26kii May 1988 waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Burco subaxnimadii Jimcaha 27kii May. qorshuhu weerarku wuxuu ahaa in jabhadu laba isu qaybiso mid u jahaysata buundada weyn ee Burco iyo mid kale oo weerarta taliska ciidamada xoogga dalka ee magaalada. daqiiqado yar gudahood SNM waxay gacanta ku dhigtay saldhigyada ciidamada xabsiga dhexe iyo xafiisyadii dawladdu lahayd. ciidankii dawladdu waxay isaga carareen magaalada iyagoo uga cararay jabhada hub iyo rasaas badan. dadka shacabka ee magaalada ku nool waxay si la yaab leh uga garab dagaalameen SNM waxaana magaalada lagu qiyaasay in 30,000 oo rag ah ay hubka qaateen si ay uga garab dagaalamaan jabhada taas oo afka dhulka Soomaali galbeed looga yaqaano igula guji. SNM waxa kale oo ay weerartay Hargeysa wuxuuna bilaabay weerarkii Hargeysa 31 May iyagoo ka yimid xadka Itoobiya. jabhadu waxay weerar xooggan ku qaaday saldhiggii ugu weyn ee ciidanka xoogga dalka ee waqooyiga waxayna la wareegeen xeradii hubka ee Birjeex. ciidamada dawladdu waxay dib uga gurteen garoonka diyaaradaha ee magaalada halkaas oo ay ku sii wadeen iska caabintooda. 1 Juun SNM waxay gacanta ku dhigtay inta badan magaalada Hargeysa marka laga reebo garoonka diyaaradaha oo ay ciidamada dawladdu wali ku sugnaayeen. kadib markii SNM ay qabsatay magaalooyinkaasi hukuumadii Siyaad Barre waxay qaaday olole dagaal oo iska caabin ah iyo olole kale oo xasuuq ah oo si gaar ah ugu bartilmaameedsatay shacabka iyo dagaalyahanadii SNM ee gudaha soo galay. ciidamadii dawladdu waxay sameeyeen dilal wadareed waxay gubeen guryo dadweyne waxayna duqeymo cirka iyo madaafiic culus la dhaceen magaalooyinkaas. Hargeysa waxay noqotay mid burburtay waxaa la sheegay in ilaa 90% magaalada la dumiyay iyadoo dadkii ku noolaa ay u qaxeen dhanka xadka Itoobiya. weerarkii SNM ee Hargeysa iyo Burco wuxuu ahaa isbedel weyn oo dhaliyay dagaalo sii daba dheeraada ugu dambeynna horseeda burburkii xukuumadii Siyaad Barre iyo burburkii qarannimada dalkeena. magaalada Hargeysa oo xilligaas ay ku noolaayeen ku dhawaad 500,000 oo qof waxay la kulantay duqeymo culus oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dalkeena oo markii hore loo soo iibiyay in ayada Hargeysa lagu difaaco. xaafadadan suuqiyo iyo kaabayaashii magaalada ayaa si aan loo meeldayn loo burburiyay. waxaa la sheegay in 90% magaalada la dumiyay dad rayidna aad u badan ay ku dhinteen. goobjoogayaal badan waxay sheegeen in magaalada si buuxda dhulka loo dhigay xaafadadanna aysan waxba ka harin. dadka badbaaday waxay u qaxeen xiriyo qaxooti oo ku yahay dhulka Itoobiya ee inaga haysato gaar ahaan Daroor, Gaashaamo iyo Xarshin oo ka kala tirsan gobolada Faafan iyo Jarar. bartamihii 1988 generaalkii u sarreeyay ciidamada wasiirka
wasiirkii gaashaandhigga iyo ku-xigeenkii madaxweynaha Soomaaliya General Maxamed Cali Samatar wuxuu amar ku bixiyay in la duqeeyo magaalada Hargeysa. Duuliye Faarax Siciid taliyihii ciidanka cirka Hargeysa iyo Maxamed Aadan Dirir oo taliyihii ciidanka cirka Berbera iyo raxan diyaaradaha oo joog sare ku duulaya oo ka kala duulay magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa duqeyn ku bilaabay magaalada Hargeysa. waase markii ay SNM soo galeen Hargeysa, Cadaadley iyo Burco kadib oo ku siman May iyo Juun dagaalkii aan soo sharaxayay. markii dagaalku adkaaday, Faarax Siciid waxa uu habarwacday saldhigyadii ku yaalay Wallaweyn, Shabeellada Hoose, Balidoogle iyo Baydhabo oo bay ah. gaashaanla sare Khaliif Ciise Yuusuf Mudan oo taliyihii Balidoogle ahaa oo hogaaminaya raxan diyaarada noocoodu yahay MiG 17 iyo MiG 19 iyo gaashaanla sare Cali Ibraahim Axmed oo taliyihii ciidanka Baydhabo ah oo isna horkacay raxan diyaaradaha Huntress ah ayaa isaguna si degdeg ah uga soo degay Hargeysa kuna biiray howlgalkii duqeynta ahaa ee hore u socday. waxaa la abaabulay duulaan cid iyo dhulba leh oo lagu qaaday goobihii dadka shacabkii u qaxeen iyo meelihii ay ku tuhmayeen dagaalyahanada SNM. waxaa markiiba sahan loo diray diyaaradaha Cessna oo ay wadeen duuliye Axmed Maxamed Maxamuud iyo Suufi Jaylaani Maxamed, duuliye Faarax Xaaji Salaad iyo Yuusuf Duse Xasan Yare. markii ay sahanka soo qaadeenna waxaa la qaaday dagaalkii lagu doonayay in lagu soo afjaro kacdoon wadayaashii SNM. duqeyn cid iyo dhulba lihi waxay socotay muddo dhowr bilood ah, waxayna magaalada ka duqeeyeen 3 jiho oo kala ah xayntii Daamurka, xaruntii Taliska iyo xaruntii Masallaha ee madaarka Hargeysa. goobahan ayay u xusheen inay yihiin goobo istiraatiiji ah oo magaalada si siman looga arki karo. duuliyayaashaasi waxay goob kasta oo ay arkayeen ay la dhaceen bambooyin diyaaradeed kuwaasoo badbaadinin bidhaan dad iyo dunyaba oo si arxan darra u duqeeyay. hubka loo isticmaalay duminta Hargeysa maalintaasi waxay kala ahaayeen D30, M30, M75, BM21, BM30, taangiyada T6 iyo T55, MiG 17, MiG 19 iyo Hunter. waxaa kale oo jiray diyaarad Shabeelley G122 ah oo rakaab iyo ciidan labadaba loo adeegsan jiray, taasoo SNM ay ku soo riday Hundulli 1989kii kadib markii ciidanka Soomaaliya ee cirku si weyn liban uga keeni waayeen duqeyntooda. waxaa furmay wejigii labaad ee duqeynta calooshood u shaqaystayaasha shisheeye. duuliyayaal sama yaqaano kuwaasoo dhakhaatiir ahaan dalka lagu soo geliyey ayaa la dejiyey guri dabaqa oo ku yaala xaafadda Hodan ee magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir, waxaana loo soo qaaday dhankaas iyo Hargeysa. waxaa la socotay haweeney lagu magacaabi jiray Archayer Rebson. nimankaasi waxaa laga soo kireystay Koonfur Afrika iyo Zimbabwe. waxaan ahay Muxiidiin Cabdi, waxaad igala socotaan juqraafi. haddaad cusub tahay fadlan subscribe noo saar bogga YouTube, followna dheh bogga Facebook, gaarsiina saaxiibo badan. mahadsanid.